بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالي waxaan cashar yar oo laylis ku qornay bog Soomaaliya iyo Germany waana mahadnaqayaa dhamaan dadkii isku dayay in casharkaasi ama layliska yar inay ka jawaabaan oo commentigooda aad u badnaa dabcan ma saxin mise waa khaldan qaybta dambe ayaan ugu tagi doonaa laakiin marka hore aan sharaxno muxuu ahaa laylisku wuxuu ahaa saddexdan jumlo horteena ka muuqda su-aasha meesha tiile ama su-aasha dadka la weydiina waxay ahayd saddexdan jumlo tuma saxan ama saddexdan jumlo waqtiga ay ka hadlayaan in waa kuma ma wax tegay bay ka hadlayaan ma wax joogay ka hadlayaan mise wax soo socda dabcan ninba meel buu la aaday dad badani waxay ku turjumeen wax soo socda kuwa badna waxay yiraahdeen waaba khalad wax saxanba maaha laakiin aan marka hore wax yar sharaxno maxay yihiin horta jumlooyinka noocan ah in aad wax khaldan ku tilmaantid ama fahamkooda kugu adkaado ma aha wax la yaab leh iyo wax ceeb midna maaha sababtoo ah waa jumlooyinka ama weeraha aan inta badan la adeegsan ama dadka sogolootiga ku adag xataa dadka luqadda u dhashaysan badana adeegsan ama xataa mararka qaar laga yaabo inay ku adkaato waana wax loo yaqaano metaliga bedikaad ama wax loo yaqaano febi guruben yacni erey fara badan oo isku hal weer ku wada jira waxa la yiraahdo marka metaliga bedikaad wuxuu u kala baxaa saddex qaybood qayb kamid ah ayaan hadda qaadanayna waana qaybta modal verbaha markasta uu la socdo sida dufen musen iyo solen iyo wax lamid ah modal verbaha oo dhan mooda geli karo qaar kamid ah modal verbaha oo aan geli karin wax la yiraahdo metaliga bedikaad baa jira waxaa jira wax la yiraahdo waxaa jira sidoo kaleeto laba qaybood oo kale oo ama laba nooc ama saddex nooc ilaa saddex nooc oo kale oo qaab oo loo qoro qaabkan hadda u qornay aan ahayn oo insha Allah isagana noo iman doona dabcan sadse structure waxa la yiraahdo ma sahlana qaabka jumlooyinka loo dhiso qof kasta oo ma sahlana marka jumlooyinka saa u dhaadheer la dhisayana dad badan way ku adkaanaysaa anyway saddexdan jumlo ayaan marka hore sharaxaynaa dabadeedna dadkii commentiyada bixiyay ayaan sheegi doonaa qaybta saxday ama soo dhaweysay iyo qaybta khaladka ku tilmaantay iyo sababaha ay ku kadsoomeen jumlada koowaad auch wenn ich nicht habe sehen dürfen auch wenn ich nicht habe sehen dürfen xataa haddii aan lay ogolaan inaan arko xataa haddii aan lay ogolayn inaan arko waa ficiltigii macnaha soomaaligana waxa weeye xataa haddii aan lay ogolayn inaan arko jumladaasi dadka dood badan ayay ka keeneen dadkii ka doodayey mid kamid a wuxuu yidhi meeshan wuxuu isticmaalay wax la yidhahdo fen maadaama uu fen isticmaalay fen waa fee forter jumladan sidaba waxa weeyaan nebensatse indamay nebensatse tahayna waxaa loo baahnaa haben inuu xagga dambe dhigo ama inay jumlada ugu dambayso waxaan rabaa inaan baraarujiyo jumlada inay hobtsatse tahay sababtoo aniga fen ma adeegsan ee fen waxaa kasii horeysa auch marka auch bay jumladu kasoo bilaabatay waana auch fen xataa haddii aan lay ogolayn in aan arko waa ficil tegey jumladuna waa hobtsatse jumlada labaad hat die Kinder abholen müssen hat die Kinder abholen müssen iyadana waxa weeyaan jumladan iyadana waxay ka hadlaysaa ficil tegey oo waxa weeye waxay ahayd carruurta inuu soo qaado waxay ahayd carruurta inuu soo qaado waa ficilna dhaafay jumlada saddexaad sie wird nicht haben machen dürfen sie wird nicht haben machen dürfen iyadana waxa weeyaan jumladana waxa weeyaan ficil hadda jooga way ka duwan tahay labadii jumlo oo hore waa ficil hadda jooga tan baa marka waxay tan muranka ugu badan dhalisay marka koowaad waxay dadku ku doodayeen maxay si bilowga looga dhigay sida waaweyn hofliqda oo kale loogu qoray oo loogu qori waayay sida yaryar waa sax si markii noom la qorayo sida yaryar iyo sida waaweyn ayaa loo kala qoraa laakiin waxaad ku baraarugsanataa hadda waxaynu qoraynaa waa jumlo bilowgeedii baynu joognaa jumlo anfang ya sats anfang ayaynu joognaa mar walba jumladu bilaabanaysana erga jumlada ugu horeeya far waaweyn ayaa lagu qoraa sida aad korba ka aragtaan auch kuwaasoo dhan far waaweyn ayaan ku qoray imtixaanka markaad galaysidna waa muhiiman jidda inaad taqaanid sida ereyga loo qorayo far yar baa lagu qoraya mise farweynada keliya garanayn sida ereyadu isu raacayaan iyo macnahooda iyo sida la isku xidhay laakiin inaad taqaanid jumlo markii la qorayo ereyga ma far yar baa lagu qoraya mise far yar yacni kalayn iyo gross ina kala saari kartid waa muhiim so marka si waa mufrad ma aha sidii hofliqda ahayd ma aha si jamaca waxaana inoo tilmaamaysa
fiirti ma inaan helen oo waxay noqon lahayd ferten haddii aan sidaas u isticmaali lahaa sidii hofliqda ahayd ama sidii inta badan jamca ka hadli jirtay ay tahay يعني haddii jamc loola jeedo waan ula jeedaa laakiin sidani xataa haddii ay hofliq ka hadlayso ferden ay noqon lahayd laakiin firt waxayna siisay sidan inay tahay si qof kaliya loola jeedo anyway waxay sidoo kale inoo tilmaantay oo aynu ku hubsanayna inay sidaasi tahay jimlo bilowgeedii baa la joogaa marka jimlo bilowgeeda haddii la joogana in far waaweyn lagu qoro iyaduna maaha wax la yaab leh maaha laakiin xoogaa dad baa ku kadsoomay macnaha jumladu muxuu yahay marka sie wird nicht machen sie wird nicht haben machen dürfen iyadana macnaheedu waxa weeyaan looma ogolo inay samayso looma ogolo inay samayso gormaan loo ogolayn hadda inta badan jumlada noocan waxaa laga yaaba dadku inaysan fahmi karin ama ay xoogaa ku adkaato for example waxaan arkaa dhalinyarada markii la isticmaalayo waxa la yiraahdo firt ama verden inta badan waxay isticmaalaan dhalinyaradu ama waxay u arkaan in dadku inta badan haddiiba ay mar firt meesha timaado ficil soo socda ayaa laga hadlayaa sidaasna ma aha ficil soo socda markasta ma noqon karto tusaale ahaan haddaan ku dhaho es wird gemacht iyo haddaan ku dhaho es wird gemacht waa laba ficiloo kala duwan es wird gemacht waa imperfect waa la sameeyey ficil tegey wey waa la sameeyey es wird gemacht waa la sameeyey fertig haddaan ku dhaho es wird gemachtna hadda ayaa la samaynayaa firt ayaan adeegsaday gemacht ayaan adeegsaday anigu kuma dhihin es wird machen kuma dhihin taas macno kale samaynaysaa laakiin waxaan kugu yidhi es wird gemacht waa la samaynayaa hadda la samaynayaa wey waa ficil jooga insha allah waxa laga yaabaa dadka qaar inay ku adkaato casharada caynkaas maadaama inaan weli dadka inta badan levelkaasi gaarin laakiin insha allah dhowr cashar baan ka samaynayaa maxaynu jumlooyinka caynkana u samaysanaynaa ama maxaynu ka faa'iideynaa horta jumlooyinkan marka u horeysa waxay ku fiican yihiin markaad jumlo qoraysid oo yacni erey markaa isticmaalaysid aadan garanaynin sida loo qoro prefectigiisa dabeedna aad rabtid inaad prefect jumlada ka dhigtid ama prefect ahaan u isticmaashid way ku saacidayaan oo adigoo aan ereygii bedelin oo sidiisii sida hadda seehan oo kale maahan oo kale adigoo aan ereygii bedelin ayaad jumladii waxaad ka dhigaysaa ficil tegey taas waa faa'iidada koowaad faa'iidada labaad markaad wax qoraysid khaasatan imtixaanka oo kaleeto haddaad jumlooyinka caynkana isticmaashid waxaa lagu arkayaa qof luqadda si fiican u garanaya iyadana boogta fiican ayay ku siinaysaa tan saddexaad ereyo fara badan inta badan imtixaanada 300 400 500 erey baa la isu diraa in la qoro Soomaa dabcan ereyada faraha badan oo la qorayo jumlooyinka caynkan markaa isticmaashid iyadana waxay ku siinayaan inaad hal jumlo ereyo fara badan u isticmaashid iyadoo aan macnihiina isbedelin hadalkii iyadoo aanu badan in ereyadii bataan hadalkii ma badanayo laakiin waxa badanaya ereyadii macnihii wax badan saas isma bedelayo taasna waxay ku siinaysaa marka in ereyadii fara badan laga rabay aad soo ururisid jumlooyin aad u qurqurux badan oo hog dhajan aad ku soo ururisid imtixaankana aad ku soo baasid xaggana aad bay inoo ka saacidaysaa sidoo kale social media waxa la media ama warbaahinta warqadaha dawladda iyo meelahaasna mararka qaar way ku yimaadaan iyadana waa muhiim markii ay kugu timaado jumlo ay ku jiraan in verbs fara badan inaad fahmi kartid macnahooda inaad fahmi kartid inta badan dadku way ku wareeraan taasna faa'iiday inoo leedahay oo inaanu fahmno jumlooyinka caynkana insha allahu wax badan baan ka faa'iideynaa maanta qayb ka mid ayaanu qaadanaynaa ilaa 3 video oo dambe ayaa laga yaabaa inaan ka samayno qaybtaan usoo noqonaya marka maxay tahay maxaa markasta modal verbaha endaha looga dhigay haddii aad isticmaalaysid wax la yiraahdo metaliga satse isla markaana aad ku isticmaalaysid wax la yiraahdo modal verbe markasta modal verbaha ayaa dhamaad ka gelaya marnaba ma geli karo xagga dhexda iyo xagga dambe toona ma geli karo haddii uu meesha modal verbe soo galo waxa meesha ku yaalaan uu yahay metaliga predicaad markasta isaga ayaa dhamaad ka gelaya ama musin ha noqdo ama durfan ha noqdo ama solan ha noqdo isaga ayaa dhamaad ka gelaya marar uusan dhamaad ka gelaynin way noo imanayaan oo isagu uusan la socon markaas insha Allah billahi kariim casharadana dambe ayaan ku qaadanaa ilaa 3 video oo kale ayaan ka sameeynaa 3 qaybood oo kale inoo dhiman baan rajeynaya qaybaha dambe ayaan ku qaadan doonaa laakiin mar walba oo modal verb ku yimaado waxa ay haysatidna uu yahay wax la yiraahdo metalic predicaad modal verbaha ayaa indaha gelaya ama dhamaadka gelaya qaybtan usoo noqonaya waxay tahay dadkii xalay tacliiq ama commentiga bixiyey qoliyo badan baa comment bixiyey waxaan rabaa inaan iraahdo dhammaantood intaan ka akhriyay commentiyada si khaldan ay uga wada jawaabeen ama way wada khaldeen jawaabta marka laga soo reebo hal qof oo ay ugu qoran tahay facebooka alas afrod ma garan karo alas afrod ma dumar ba mise waa nin ikhfaysas nifti
laakiin qofka ciwaankaasi wata ayaa jawaab saxa bixiyey wuxuu yidhi saddexda jumlaba way saxan yihiin sidaas ayuu yidhi walaba uu iska dhigayay qof qiyaasaya oo uu yidhi aniga aynsteed waxay sheegaysaa saddexda jumlaba way saxan yihiin ma ka dhabay ahaydoo waa qiyaasi mise uu garanayay si kaloo hadalka u dhigayay allahu aclam hadduu garanayay maasha allah haddii uu qiyaasana nasiib wanaagsan baan leenahay waad ku guulaysad inta kaleeto dadka jawaabo khaldan ayay bixiyeen mana aha inaysan dadku luqadda garanayn ama wax khaldan ay sameeyaan sababtoo jumlooyinka caynkana waxa khalda dadka luqadda u dhashay ma aha wax oo mar walba kugu yimaado ma aha wax level ku salaysan oo aynis iyo asfa iyo bisfa iyo waxaan lagu dhigto ma aha marka haddaad khaladid runtii ma aha ceeb ma aha marka qolyaha iyagu isku dayey ee dadaalka geliyey ee jawaabaha khaldan bixiyana waxaan leenahay waa mahadsantihiin dadaalkiina waad ku mahadsantihiin waxa wax lagu barto waa khaladka marka wax khaladid ayaad wax sixi kartaa insha allahu halka ayaan maanta casharkan ku joojinayaa intaynu cashar dambe isugu iman doono waxaan idinku dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciddii rabta insha allah binillahi kariim qaabka jimlooyinka loo dhiso iyo wax la yidhaahdo casharadan aan ka sheekeynayno iyo wax badan inay luqadda ka fahmaan insha allahu ha qaataan buugga la yidhahdo umfangreicher deutsch und somalisch waa buug soomaaliga iyo jarmalka isku turjumaya waa buug aad u ballaaran waa buug jumlooyin iyo ereyo ka kooban aydan jumlooyinka faraha badan buug ku jira waxay kaa saacidayaan ugu yaraan inaad fahamtid qaabka jumlo loo dhiso ama ugu yaraan inaad baratid inta jumlo ku jirta luqadda inta jumlo luqadda ku jirta sida qaabka jumlo loo dhisi karo jumladu markay khaldan tahay markay saxanta saa kala saxid ereyo fara badan iyo weero fara badan inaad baratid insha allah waxaan rajeynayaa faa'iido badan inay buugga ku jirto qiimihiisu waa 25 euro oo keliya qofkii meelaha lagu gado garanaya ha soo qaato qofkaan garanayna insha allah annaga nala soo xiriiro annaga ayaa u tilmaamayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu